يا سعدي وهنائي القرآن حياتي أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت محوية رويدة قالت سمس عن كراي صار أرضي ويا ولا حيسان تجويد كعاد وانفع عيسى. بسم الله وعايز صنع يا ها أنا قعنت يا جدع ذا كوري منك نك الله ينوشها في وانين قالي هاي وادها هي بسم الله قرت إنه ولا حا مشرحين موقت صبورده بري wax ku qorneed waa bariga macalinka marka mala macalinka marka sanad buu joogo marka waqti dheer bay ugu dambeysaan wax yara sharx marka iska bilaabana marka darsi naafica oo lagu intifaaco Allah ka dhig insha Allah أنا هاي النظام هاي حسنا إن شاء الله صعونيس قفل بكفايست ويا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار آمين. ويا مادة علم التجويد هاي الشيء مادة ومادة صعيس وياه ما كان ولا سوق هذا محي بوق الله سوق هذا إلى إن شاء الله بقول حلقة ميرابا كرجلنا إن شاء الله بين نقطة بين الله تعالى إن شاء الله مركز درس كان أنت وقت نوار هذان كل جالسين وإلهي مهدويا كل لا ما وقت يسوي كوبين وياه بدأ تجديد كمركز ومادة مهمة oo kamid ah wax weeyaan sida sheekhinka maqlayeen wuxuu lahaa waxaynu baran doonaa laba shay quraanka seebaan u baranaa ee seebaan maxay u akhrin karaynaa quraanka si sax ah seebaan u akhrinaa marka tajwiidku wuxuu ku barayaa maxay sida saxda quraanka maxay aad u akhrinaysaa ayuu ku barayaa waaya marka maadaama hada Sheekh Abdul Qaadir maalin quraanka ka dhiganaysaan waxaan aad u jeclaa intaan Sheekh Qaadir bilaabin inta sheekhi xataa kaga horeeyay maqaarista ka soo dhigtay intaan bilaabin ka hor inaad darsiga dhigataan waxay idinka caawin lahayd qof walba isagoo yaqaan xaraf meesha ka soo baxo sifaadka uu leeyahay isagoo qofkii garanaya ayuu ala cilmi deetan quraan ku dhigaysan lahaa iftaaxayan warda la socota kadr xaga qadr waaya marka إن شاء الله تعالى ويسيك المهمسين درسنا ما أنت رجعنا إنسان بقوم يسنوه حرف الماشي كصبح واي كل هردعي فراب بنا يمكن ما تشري يمكن الله ضوين وحويان يمكن درس فرح جري يمكن قاعدتين محي التصاميم صماهين العلامات قاعدتين درس يمكن يوحكي حسوسته marka inaan noqon wixii marartu la adri qofka natiijada sabab binaadamka mar waxa uu kuma fahmo wuxuu u baahan yahay tikraar cilcilin marka anna saysan igu noqon cilcilin mar walba inaan darsiga ku celiyo aalada soo ilaahay maanta noo fudeeyay oo wax badan oo qofku wax weeyaan uu sheegi lahaa isaga tagi lahaa keed uu noqonaysa waxa la yaabaa marka inka culimadii hore waxay xoog saar jireen tasniifka qoraalka sheekh waxa laga yaabaa 10 kitaab 20 kitaab ama laga yaabaa marka loo eego intuu qoray iyo umrigiisii way kala badeen imaam shaafici rahimahullah daadiisii kutubtu ka tagay isma lahan ibn qayyim rahimahullah kutubtiisii daadiisii isma lahan sheekhu ibn taymiyyah rahimahullah iyo kutubtiisii isma lahan laakiin culimada maanta mucaasirka taaliifka aad buu yiri ninka maanta jaamacad ka baxay ninka shahaadada sare diyaarinay ninkaas uu maanta kitaab qoraso buuga jaamacad laga baxo laakiin bariga hore taaliifku wuxuu ahaa maxay wax iska caadi oo qof walba qoray waa marka maanta taaliifkii maadaama uu yaraaday maanta waxa imka aad u xoogaysta maxay tasjiilka qofkii inuu wax duubo ma garanaysa
oo dadweynaha Soomaaliya marka eegtid qoraalka aad buu u yiri ma sahayn laakiin wixii aad xoog u saaray maxay tasjiilka waxa laga yaabaa muxaadaro 2 saac soconaysa in kitaab laga qori karo wada adiladu soo ururiyay ma garanaysaa sharax u sharxay aqwaashu soo ururiyay waxaas marka la yiraahdo caadaha loo qoro oo qalin iyo buug loola tago maxay noqonaysaa kitaab dhan ma ka soo baxay waay naam marka isku diidana marka in si degan aan u sharx insha Allah saa u fahantaan marka wixii inaga qabiyan noqdo qofkii uu hor wada fahmi waayeen nabi sallallahu alayhi wasallam markuu tilmaamay saxaabadu walaad wuxuu lahaa wa ana alqasim wallahu yu'ti wa ana alqasim ana waxaan ahay maxay ki hadalka qaybinay oo saxaabada daatin hadalka idin soo wada gaarsiinaya laakiin keeba fahamka bixinaya wallahu yu'ti Allah ya bixi maxay fahamka asbaaba u weyn wax lagu fahmo waa maxay qofka in laba shay laga helo takood waa maxay in dareenkiisa soo xaadiriyo talabaad waa maxay qalbigiisa inuu keeno inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid safhada shabqoliyo iyo 20 waxaan soo cinka ma aayad raac waxaan aayad marka noo raacinay aayad loo safhada آيات الوضع وهي سطر هاي آيات تضبيط صدنات سورة قاف الله منكم تلامي وحلقة الشكي وماذا لا سهل هاي مرك على وحي إن في ذلك أرنك الله صوت شيء الذي كرا ذات وحي لين عنك ما أنت بس الشيخ واحد مرك إن في ذلك الذي كرا تعالى صوت شيء وحوي وانو لمن كان له قلب يوانو تهي لمن كان له قلب قفك قلبي صحيح معناه maxay laabtii wax ku weelan laha marka hore ayuu alla u siiyay waaya aw alqa as-sam'a wa huwa shahid maqalkii dareemihiina uu soo xaadiriyay isagoo marka xaadira oo meeshina wax weeyaan fadhiyo jooga marka labadaan way laga hel hadii kala Soomaa oo qofku wax weeyaan meesha uu joogo laakiin maskaxdiisa iyo dareemihiisa ay maqan yihiin khalaas waa calaamad munaafiqiinta وممكن النبي صلى الله عليه وسلم تلامي في سورة محمد سورة يمكن دميين ماذي ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ومنهم حكم المنافقين من يستمع إليك متكل سنة حتى إذا خرجوا من عندك مركي أكتر هذا كبحان أو وعدي محاضرة النبي يقول لما لك رد يا رب بنانك لو وضبحوا ضدك الله بين غنيان قال وحي فهمي قارن فهمته marka qaalu lil ladina utul ilma kuwi ilmiga la siiyay ayaa waxa ku oranaya kuwi kale aan wixii fahmin maada qala anifa maada maxabu qala uu yiri nabi maxamed anifan goro war muxuu ka hadlay nabi maxamed saas baa hadda meesha wada fadhiyay ayagoo wada fadhiya biyada waxba ka fahmin maxaa lagu soo xiraayada ulaaika alladina tabaca Allahu ala qulubihim kuwaas oo ku alla qalbigooda u xiray uu daboolay wattaba'u ahwaahum hawadoodii rabitaankooda raacin marka waa in marka qalbiga xaadir uu soo jeeda mar waliba fahamku wuxuu ka dhashaa maxay xusn istimaac markaad sheegi si wanaagsan u dhageysato markaas aad deetana si wacan u fahmaysa waaya marka cilmu tajwiid marka waxa jira waxa loo yaqaan al-mabaadi wal-ashara waxa jira waxa loo yaqaan maxay al-mabaadi wal-ashara al-mabaadi wal-ashara maxaa loo jeedaa waa fanni walba qofku markuu dhiganayo 10 qodob baa la doonay inuu ka ogaado maxaa la doonay inuu ka ogaado maxay 10 qodob marka 10 ka qodob galabta waxa ma wada qaadan insha Allah marka aan ka dhigan doonaa ee xalaqad gaar baan ka dhigan doonaa laakiin galabta waxaanu qaadanaa maxay galabta waxaanu qaadanaa taariifka iyo qeexida marka mabaadiidana waxa lagu soo ururiyaa laba gayo lagu soo ururiyaa mabaadi ay ilmin kana haddun وموضوع وغاية مستمد برا يقول مثلا لبصنا وحوما شيء موت مسائل نسبة وصف وحكم وفضل وواضع 10 تعدد فن والبوح اللي تنقض بلا كوكاتب مبادئ أي علم كان حد علم والبوح اللي حد قيحديس وموضوع واحد لو دجي وغاية هذه الله برت واحد لقى هذه مستمد ما شاء الله عسكري وحول والبرني وإن شرع جمال وكهسته هي مسائل وحو كهل واحد كمدي هي نسبة فني أنا مركل بربر فنون أنت ذا كله هلكو كتاعين هاي وصم فني ما جي سنة وقتت
وحكم فنقاسي شرعي محوك قبا قف وحول ببرنيو شرعي وبنيجي أحكام الخمسة حقيقة كجسو هذه مواجب ونقونيا محرام مصنع ممندوب ممكروه ممباح الأحكام الخمسة حقيقة قلية وهي وفضل قيمة ولي فنقاسي هي وواضع وحاوضا بفنقاسي يا دجيي مركا قالت مركا لبدا قضب بين قادنا فنقا تجويد محلي هذا ياس دجي مركا ياس دجي كمان قرين لكن قاعدة ما قرأ تعريف فهم كنا قاعد مخارجته marka yaa dajiyaan iska soo marsanna faniga tajwiidka waxa dajiyay a'immatul qiraa'ah ama a'immatul qurraa aimada quraanka waata culimada iminka isqaybiyeen qaar xadiis ay u beereen dadna xadiis ku dadaaleen dadna waxa loo bixiyay maxay muhaddisiin qaar waxa loo bixiyay waxay u beereen maxay xaqi fiqiga dadna waxa loo bixiyay maxay fuqaha qaar waxay qabteen xaqi quraanka luqadu ku yimi oo luqada carabiga hormarintiisa sida nahwi sarfigi bayaanki macaanigi badiici uruudki qawaafigi قوانين الكتابة تواريخ دي علم المحاضرات والخطب لبي طبعا كفنين لو جمعيه اللغة العربية ديتر waxa loo bixiyo luqawiyiin baa loo bixishay qaar waxay qabteen xaqi nabiga sallallahu alayhi wasallam dhaqankiisii dinas culamaa usir baa leeyahay qaar sanadkii bay qabteen culamaa rijaal baa leeyahay qaar xaqi tawxiidkii qabteen culamaa al-aqeeda qaar waxay qabteen xaqi waxa weeyaan quraanka oo hadaan ka hadlayno waa culamaa al-qurra marka تجويد كباهيدا كانت مركا واحد دجي فنغاني مركا laga hadlay waxa dajiyay a'immatul qiraa'ah si kala si guud hadii loo sheero waxa leeyahay a'immatul lugha oo tajwiidka arkaysa ama luqada qayb uu ka mid yahay marka aad baan u sharxay laakiin waxa sharxan sheegay inay wada fahmin baa laga wada qaadi kari weysaan marka waan soo koobay okay marka yaa fanigan dajiyay hadii la soo khulaasay waxa dajiyay a'immatul lugha ama a'immatul qiraa'at aimada quraanka qiraa'aadka quraanka awjuud lagu akhriyo 10 wajhi ayaa waxa weeyaan aimada aanka samsaad u dajiyay wafsaxay ayaa waxa weeyaan fanigaasi dajisay waaya marka waxaan u soo noqonaynaa maxaa tajwiid leeyahay qeexida maadatu cilmi tajwiid maadada cilmiga tajwiidka horta tajwiid waxa weeyaan wuxuu ka yimi min jawada shay'a yujawiduhu tajwiidan jawada shay'a shaygu qurxiyay yujawiduhu qurxinayaan tajwiidan qurxin marka tajwiid waa masdaru jawada wuu qurxiyay kelmadii wuu qurxiyay ama jawada albinaa albayt guriga dhismiis wuu qurxiyay jawada سياق السيارة وحو قرحي معي قاري كحنتيسي من التجويد وحالي هذا التحسين شيء لها جاجيو حق اصطلاحان أما علماء القرآن أما علماء القراءات كما علماء التجويد أما أهل الأداء وحي ويقان تجويدكم إعطاء كل حرف ولي سينتيسة حقه حقي سلسيو إيه ومستحقه حرف كوحا أصيم تيسانيو أو كدن لي حق الحرف هو تجويدك إعطاء كل حرف حرف دمانتي سينتي وي حقه حرف كحقي سلسيو marka xaqul xarf waa maxay waan dhiga doonaa insha Allah iyo waa mustahaqahu xarafka waxa uu sii mutaysanaya ama ka dhalanaya xaqul xarfi oo iyadana sharxi doono oo qofku waxa weeyaan uu gartay weeyaan marka halkaas waxaan ku dareynaa ilmun yu'rafu هو تجويد كما محي وعلم يعرف وعلم لو قرني ويه إعضاء كل حرف دمانتي سينتي حقه ولا سي حروف قدام واي مسوي واي مسوي سغايلا حاجه حلقه مركه حاجه ولا هدين مركه اسقدر waa 29 وعده الحروف للهجاء 29 بلا امتراء حروف ترى ka koobanta waa maxay waa 29 weey بلا امتراء شكلان maxaa ugu horeeya hamza haye ba ta sa jim ha kha del bin on imalena دال ورا كريسه marka del haye zal ra inta ma sawiyaan toban way sawma za sin shin sad ضاد ضاء ظاء عين غين فاء قاف واقص ولا باتوي كاف مسكوي لا توي كاف هاي لام ميم نون واو ها halka waxa ku jira maxay xaraf loo yaqaan maxay laam alif haye
يا مركز ديلا تك soo baxday marka xaqii hore ee raada baan ka soo bilaayo halkaasan ayaa wax yar qaaday ها وان dareemay marka raada ka soo raada toon Soomaha za sin shin sad dad da za ayn ghayn fa halka waa 20 weey qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif ya marka 29 ka xaraf marka 29 ka xaraf waliba xaq buu leeyahay iyo waxa loo yaqaan mustahaq labada arin buu leeyahay maxaa la yiraahdaa marka xaq iyo mustahaq maxaa la kala yiraahdaa حقه حرف كحقيسو أي إخراج مخرجه حرف كمخرج كيسة كساري ديوي يعني حرف البجود بكصبحها حروف سان برد إنه قاربة ولا لا قاربة المغيرة قاربة المبتية قاربة قرابة جودة ها صار كمثال وصيد ضدك كلام حروف مركا حق الحرف وامحي أي إخراج مخرجه حرف كمخرج كيسة جودك كصبحه كساري ديوي iyo wa i'daa'u sifatihi sifadiisa iyo tilmaamtiisa siintii imku xalaga waa shan ayaa wada dhalanaysa sabab isku hooy weeyaan maxaa lagu kala saaray tilmaam lagu kala saaray sabab halaarnay kan waa caynka kan uu dheeriya kan uu gaabay kan uu buuray kan uu dhuubay saaraysan aw saaf beelay marka xuruufta qaar baa isku maqlin qoray maxaa lagu kala saaraya si tilmaam baa lagu kala saaray marka حق الحرف وامحي وإخراج مخرجه حرف كمخرج كيسي يقد كيسا كساردي يعني هلكو كسب عنا كسرته وإعطاء صفته صفدي سيت المامتي سواء سيسو صفة مرك الله إنه نقدر إن شاء الله صفة اللازمة جوكتدهيت يعني بحال لو كذا مرنا يمكن قفل وحول التلمام مرنا كدع مرنا راعسة هي التلمام ولي أن كدعين سما قفك إنه ديري أمينه جابي مرنا ميو قاوي مرنا ميو ديرانيا مرنا ميو بورنيا هاودي كره سوما لكن انت دنعو بدي marka taas kale waxa loo yaqaan as-sifatu al-lazima aminu asay inuu madooy waa maxay waa tilmaam maxay isaga la xiriiraan ka goynayso okay sifa marka waxa jirta ka haraysa jirta sifa maxay marka ka haraysa waa la socoyn tusaale waa maxay maanta qamiis gusta qofan garnay haduu tilmaamsanay maxaa waray kii qamiiska sita maalinka muxuu sameeynaya marka la soo xiranay marka maxaa waray tilmaamtu maxay noqonaysaa waa tilmaam maxay guurguuraysa marka taa way noo socotaa sifatu al-aarida loo yaqaan marka xarafka marka makhrajkiisaasi markaad ka saarto xuruufta qaarkood ay isku makhrajka noqonayaan waxaad kaga soocaysaa inaad siiso maxay sifadiisa iyo tilmaamtiisa maxay laazimada ay joogtada ninkaas aad u mashquulsan telefoon baa ugu jira meesha waa ka maarta telefoonka waa iska xaray mushkila مشين كاير بقى مسكحة قاضنية درسي كمان مشغولني أوكي halka maxaynu faanay hadii la yiraahdo marka xaqul harfi xarafka xaqiisa hadii lagu weydiin maxaa oranaysaa waa inaad xarafka makhrajkiisa ka saartaa sifadiisa laazimada ee aan ka harin ee mar walba la socotana maxay siisa inta wasla faanay Soomaa xaqul harfi waa maxay hadii la yiraahdo maxaa oranaysaa حق الحرف هدي له محاورنيس waa laba arin way إخراج مخرجه halku ka soo baxo maxay oo aad ka saarto iyo وإعطاء صفته اللازمة iyana si maxay tilmaamtiisa maxay isaga la socota aan ka harin ee mar wali la soconaysa banash tilmaamta shakhsiyadiisa ka tarjumaysa wuxuu yahay wasla faana Soomaa okay sifooyinka laazimana insha Allah waan arki doonaa toddoba كتابك الجزري كهذا وحيرة صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قض بكت وبين الرخ والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قض حصر وصاد ضاد ضاء ضاء مضبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف الصحيحة في اللام والراء كتابك الجزري لو يقارن مقرر كنا وقرن أرضي واحد دوني لح كتاب كذا كحفظ الدوني يصدق كتاب ودش سجالها كتاب الدوني مر طبعا كتاب الدوني تبيد كانوا كحفظ مرة كتاب كلواد وياه الجزري لو يقارن وبقولي تدوبي وياه أبيات وقاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد بخاتم ضد بكير قبل أبيات وكتابك أبيات دي ترد كوكبية بيت كيسو وقاف وزاي وقاف يزاي كتابك أبيات صام حي وقافي وقاف يزاي ومحيده دي قاف يزاي تغينا ما هذا يمكن كده وانت وقاف يزاي ترى ويا لويا قاف كانوا بقول بكده جاي هاي زاي من حكاية انت
تضبط كده أنت مركز سوق بقوليه تضبط حروف الأبجاد ده دروس بقول كدرس إن شاء الله نقدر أي نوجد بإذن الله أبجد هوز حطي كلاما صعفص لبض طريقة مشارقي مغاربة صعفض يسعفص قرشت فخذ ضغ ضغش أبجد حروف تلا والله قبيح حروف الأبجدية القديمة عرفت هرب تقيني وأنا كمان أنت بدل مدارس معلومات قاركود معلومات هرب قديم كأي أرضه قاعدة حاجة مقدرة إيوه كان ما أنت نقاني ألف كهمزة باء تاء ثاء إنه ليق على الحروف اللي جاء حروف مرمير الله الصواعي مرمير الله استهجين مركان صفة مركا لازمة waa maxay waa tilmaamo aan adiga doono insha Allah darsiga noqon doona oo toddobiyo 10 sifo oo xuruufta dhan ay ku kulmi doonaan laakiin ay kala badsan doonaan insha Allah waanu ka baxnay marka tajwiid waa maxay waa inaad xaraf walba aad garataa xaraf walba inaad siiso maxay xaqiisana waa maxay inaad makhrajkiisa ka saarto sifadiisa laazimada inaad siiso مستحق وحنو قد بينا إيوه ومستحقه إيه حرف هنا تسمحي مستحق وامحي مستحق وحويان أي إعضاء صفته التي تنشأ عن تركيب الحروف أي إعضاء صفته حرف كتلمانت سينتيوي حتى مستحق هذا نصور هل كان محان كل صفة لازمة حرف كان كهري سمينا ورن وحاجة أنا صفة محي جور تسمينا ورن أو حرف كمرة ولا ساعة مرة ويكهري مركز تاسع لو يقانا مستحق مركز السوق خلاصية مستحق وامحي وصفة جور حرف كان مرة ولا عن صارنين مرة لسعة مرة كهري وأنا التجويد حقه كبدي وياه تجويد كفن تجويد كوفن يروي وحلي هذا أصغر فن في الشريعة الشريعة مركز لقاها هذا فن هو يرويه wuxuu ka hadlay gabigiisa maxay 29 xaraf quraanku ka kooban yahay iyo xarakaad lagu dhaqaajinayo inta uu fahantu ka kooban marka waxa badanay marka waa maxay waan arki doonaa 4 tiir uu ka kooban yahay waxa badanay marka ma ahan labada saddex tiir ma ahan tiirka saddexaad oo arki doonaa sifada caaridaha mustaxaq waxa loo yaqaan oo xarafka sifada marka guurguuraysa marna uu qaadanay marna ka haraysa sida idhaarka iyo idghaamka iyo ikhfaa iyo iqlaabka iyo tafqiimka iyo tarqiiqa iyo itmaam alxarakaadka iyo azminatu alxuruf iyo nabrada iyo واركي دونا اوقافته iyo muduuda iyo kuwaas waxa loo yaqaan maxay as-sifaatu al-aarida sifooyinka gurguura oo xarafka marna ku soo daray marna ka hara marka mustaxaq waa maxay ay i'daa'u sifatihi xarafka tilmaamtiisa siintii way allati tilmaamtaas oo tanshaw ka dhalanaysa an tarkiib al-huruf hurufta isu keenidooda waxa leeyahay huruftu waa sida bini aadamka iminka qof oranay kaliya baan noolaanay miyuu jira ما جد وين قف بالشيء صالح قال سامان حروف حرف أورنا أنا كلي واسكو فينا كلي لا آخرين كلي ما جد حرف المحبوب هي إنه حروف كالرصة صار بالك كلمة قرأ وهل حرف ككون ميجته ما جد وأنت حرف وين سوتك تام مركا حروف مركا سيد ذك بين عادك مركا مقالين كي ودقين سيد إيجار حقوق وغير على الناس بحروف مركا يسوي ما قال سكو آخرنا يعني حقوق بيالنا يعني oo marka akhrinayso way kala duunaanayaan marka sifada marka mustaxaq waxay ku timaadaa laba arrin ku timaadaa kow aan tarkiib al-huruf hurufta isku keentooda marka isku keenidooda marka hurufta la isku keeno ama la isku akhrinayo ayaa itimaada waa takwaad weeyaan waxa kale oo ka dhalataa maxay والصفة اللازمة هي صفة اللازمة أنا صادق أنا حرف الشخصية دي سلح يدي بمركز قاركينا وحكذا أنا محي صفة كله تصالح وهكذا دونا حروف حاجة حروف طلع الواقع بها حروف آد ونحسن وده يلقي كوب بدين آد ونحسن كبرت تقول كيس كذا أنا درسي وحنا درس عادو خير بحث صح درسي قدام حاجة أنا يرى لو قدرت حرام أرض الله قدر مو معنا أنا أوكي حروف طلع الواقع حروف آد ونحسن وده يلقي كوب بدين هي حروف سكوية وأنا حروف عني بده عاد سكروا دوبا مركا حروف مركا عاد كوا وين ما محي تطبع حرفي وحلو جمعية خص ضغط قض حصر خص وخاء صاد خص ضغط ضاد غين ضاء قض قاف يضاء مش عارف وين خص مش عارف وين خص لو حرف سما خايو صاد ضغط وضاد يا غين يا ضاء مركا ضاد غين يا ضاء صدق اوجي لبدي هراميسا شنوي هي waxa ogeynaysa qid oge waa imisa laba weey qaaf iyo dha todobada xaraf meel wad ku aragto weyn naxnaxsay weenad weynaysa khalidin sad as-sakha ضادك وانا الضالين غينك من غل ضاد الضامه قافك وقال الذين ضاد
الظانين عوض ما حينيسا اوكي حروف waxaa jirta marka qaarkeed iga la weynay sida raado kale iyo laamko kale laakiin xuruufta si rasmi loo weynay waa todobada xaraf weeyaan marka maxaan uga socdaa todobada xaraf sifo waxay qaadanayaan loo yaqaano al-isticlaa oo ah in xarafka carabka kor loo qaado marka lagu dhawaaqayo kho so waxa la qaaday xagga hore ma xagga dambe kor u qaadaysa kho so do xagga dambe kor u qaadaysa mar walba waxa u baahan tahay afkaaga inuu furay mushkiladna waxa way afka isku leeganday hadduu afkii space wali gaana afkii qofka hadduu halka uu aad u yar weyn ta Soomaaliya halkan aad weyn Soomaaliya halka aad aad ku iskuusayin Soomaaliya dadkaas kala nudqi aad buu u fuday waa space waa istaado carabku u dhaqaaji اوكي marka xarafka marka todobada xaraf maadaama ay ku sifaysan yihiin sifatul isticlaa isticlaa waxa ka dhalanay maxay isticlaa sifo loo yaqaano at-tafkhim waxa ka dhalanay sifo loo yaqaano maxay at-tafkhim oo weynay in xarafka aad loo weynayo ilaa marka carab kor u qaado codkii soo baxay maxaad sameeyay waa yar cadaadilsadeed codku muxuu noqonayaa uu naaxiya wa harf al-isticlaa fakhim wa khususa lidbaq aqwa nahwu qala wal asa wajzari rahimahullah wuxuu wa harf al-isticlaa huruf al-isticlaa mufrad mudaf ila ma'rifati fay'um harf bali idafi al-isticlaa wa lo idafi harf macna huruf noqonay sida inta uddu ni'mat allah ay ni'am allah marka huruf al-isticlaa haddaad meelaad ku aragto ku dhawaaqayso maxaad samaynaysaa fakhim weynay maxaa la miday todobada xaraf wixii ka soo marka waa la yareynaya oo waxay leeyihiin sifatul istifaal marka maxay carabka hoos loo dhigo way sida ka sa za dal ba ta ha wad carabka kor u qaad ormaysid ha da ka ورنيس وكوير في الحمانيس حاجه لو مت لجنت halka xuruufta kale imika aqbalayaan khaasa way ku quruxsayn okay marka todobada xaraf wixii ka soo haray way 29 todobada ka jir way imisa 29 todobada ka jir way imisa maxaa soo haray 22 ka jirta xuruufta qaarkood marka qaarkii la weynay sida alifka iyo laamka iyo raa xaga iska dhig maxaa soo haray 19 soo Soomaa 29 ka xaraf daa'iman waligood waa la weynaya marka maxay ka dhiganta maadaama istifaal ku sifaysan oo carabka hoos loo dhigaa waxa ka dhalanay maxay codko yaraada سنت من فهم هذا فرققا مستفيلا من نحرف وجزري رحمه الله تعالى اوكي انت سايقول يراتي marka qeexida taariifkan qaadan inta dambe baad salaams ka qaadan doonaa marka waxaan u gudbayaa tajwiidku gabigiisaba waa 4 tiir weeyaan waa imse tiir weey tajwiidka 4 tiir tiirka koowaad waxa weeyaan maarifatu makharijul huruf ila socodada maarifatu makharijul huruf maarifatu makharijul oo waa tiirka maanta aan qaadan oo inaad garato xaraf wala meeshu ka soo baxo iska jooji